falcelin diidma ah oo xooggan ayay goor horeba dunida kala kulantay tallaabadii shalay nidaamka Israel ku aqoonsaday madaxbannaanida Somaliland. Dalal iyo ururo jaangoyn siyaasadeed ku leh adduunka ayaa khilaafay go'aankan kuwa oo docda kale taageeray madaxbannaanida iyo midnimada daleed ee Soomaaliya. dalalkan miisaanka diblomaasiyadeed leh waxaa safka hore uga jira Sacuudiga oo jaal dowla ah Mareykanka, Turkiga oo miisaan sare ku leh mustawayaasha siyaasiga ah, ururka midowga Afrika, kan jaamacadda Carabta, urur goboleedka Khaliijka, dalalka Masar iyo Djibouti iyo Soomaaliya oo laf ahaanteedu si cad u diiday xadgudub sharci iyo mid madaxbannaaniyeedna ku tilmaantay talaabadan. Somaliland ayaa docdeeda u dabaaldegaysa aqoonsigeeda ugu horeeya 34 sano ee Hargeysa gooni isu taaga ku taamaysay iyo didiilo ah inay aqoonsi rasmi ah dunida ka helayaan ayayna u abuurtay rayidka Somaliland talaabadani. waxaase muuqata in goor horeba ficilkani la kulmayo dhaleecayn ka imanaysa dhinacyo saameyn leh. marka laga yimaado doonista Somaliland ee helitaanka aqoonsiga oo 10 sano ee ugu dambeeyay uu ahaa yoolka ugu weyn, docda kale Israel ayaa khubaradu ku durtay inay aqoonsigan ka leedahay damacyo khaas ah oo iyada u adeegaya, kuwa oo lagu sheegay qayb ahaan saameynta ay doonayaan inay ku yeeshaan jidbiyoodka Baabulmandab ee Somaliland kulaasho in Somaliland noqoto dowlad kale oo Islaami ah oo xubin ka ah heshiisyada Abraham Accords oo Mareykanku hindisahooda lahaa. qorshuhuna yahay in guud ahaan dalalka Carbeed iyo kuwa kale ee Islaamkuba ka qayb noqdaan siba la yiraahdaa hoos loogu dhigo cadaawadda ka curata ficilada Israel ee ka dhanka dadka Falastiin iyo masjidka barakeysan ee nidaamkani kala kulmo dunida Islaamka. ogow isla shalayba Somaliland waxa ay qayb ka noqotay dalalka ku jira Abraham Accords sida lagu sheegay warmurtiyeedkii shaacinta aqoonsiga madaxbannaanida. kadib aqoonsiga Israel waxa la odorsayay in dalal kale oo waaweyn safkan soo gali karaan oo taageeri doonaan go'aankan aqoonsi ama iyaga laf ahaantoodu aqoonsan doonaan Somaliland. Mareykanka ayaana safka hore uga jiray meelaha sida dhow isha loogu hayay, ha yeeshee waxay u muuqataa in Washington aysan doonayn inay door degdegsiimo leh ku yeelato aqoonsiga jaalkeedu siiyay Somaliland. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo maruu ciyaarta golofka ku madadaalanayay shabakada New York Post weydiisay haddii uu door ku yeelanayo talaabadan ayaa sheegay inuusan dhaqso ugu degdegi doonin go'aanka Netanyahu, waxaana uu muujiyay inuu tixgelin doono waxa uu ugu yeeray go'aanada saaxiibadiisa bariga dhexe. wuxuuna diidmo koobnayd oo u dhignayd maya hadda kaga jawaabay weydiinta ahayd haddii uu aqoonsanayo Somaliland. isla goortaas oo uu mid ka mid ah dadka golofka kula madadaalanayay weydiiyay haddii ay jirto cid si dhaba u garanaysa waxa Somaliland tahay. tan waxaa lagu fasiray inaan Mareykanku ku degdegayn kaalin ku yeelashada go'aanka aqoonsi ee uu Somaliland siiyay saaxiibkeeda ama allaygeeda ugu weyn dunida. ugu dambeyn, Soomaaliya ayaa lagu warramay inay wado dadaalo diblomaasiyadeed oo xooggan oo ay ku doonayso kordhinta culeysyada la saarayo Israel ee ahmiyadoodu tahay inay ka laabato go'aankan, iyo isla dadaaladan diblomaasiyadeed oo la wariyay inay qayb ka yihiin in Muqdisho doonayso ka hortagga dalal cusub oo ku biira qorshahan aqoonsi.